kadib markuu liisaskii xul walba ama waddan kasta uu soo saaray ee ciyaari lahaa koobka adduunka waxaa la yaab ku noqotay taageerayaashii iyo daawadayaashii ciyaartooyo aada u qiimo leh oo diyaar ahaa haddana aan laakiin lagu soo darin liiskaasi oo tababarayaashii ay iska reebeen. imika warbixintan aan idiin soo deenayno waxaan idiin tusaynaa inta ugu wanaagsaneed ee laga reebay koobka adduunka oo tababarayaashu ay ka reebeen. Mario Götze oo Jarmalka u ciyaara waxaa go'aansaday Joachim Löw oo mudarribka tababaraha Jarmalka inuu ka reebo ninkii goolkii u dhaliyay koobka adduunka lagu qaaday ee loo yaqaan alfata dahabi. sababka koobaadna uu yahay hoos u dhaca ku yimid ciyaartooyga iyo tiimka u ciyaari jiray Borussia Dortmund. laba Anthony Martial oo Faransiis ah baasha u ciyaara Manchester United kaasoo weliba laacab waxa keenay dee inaanu asaasi noqon naadiga u ciyaarayay markaa Manchester United. waxaa deeshay ku dhaqaaqay markaas inuu ka reebo ciyaartooygaasi dee oo xulkiisii uu ka hadho marka uu eegay ciyaartooyda badnidoodii iyo tayadoodii. waxaa kale ka hadlay David Jenon. Deschamps wuxuu haystaa buu yidhi magacyo aada u waaweyn ka soo bixi karaya hawsha loo diro sida Mbappe iyo Griezmann. Alvaro Morata oo Spain u ciyaaray isaguna kadib markuu ka reebay tababaraha Jole Betege. hadda Morata wuxuu ka daawan doonaa koobka adduunka gurigiisa. sababtaas oo tahay dee Chelsea ayuu beachka in badan u fadhiyay ciyaaro badan uu ka soo qayb gali waayay. Andrea Schürrle oo Jarmal ah baasha ka ciyaari jiray isaguna waa laga reebay sababtoo tahay beachka iyo mustawaagiisa ciyaareed hoos u dhacay tiimka uu ciyaaro Borussia Dortmund. Alexander Lacazette oo France weeraryahanka Arsenal u ciyaara kala badh koobkii ama liigii ka jiray marka Arsenal Ingiriiska ahaa. markii uu yimid Aubameyang Arsenal ayaa soo ku dhacday. Cesc Fabregas isagoo ciyaartooy ah oo khibrad badan. Fabregas isla markaa waa laga reebay qaa'imada ama liiska xulka Spain taasoo wax sababa oo muqnaca ah oo ku qanco la soo saar waayay. halkuu uga yeedhay Andrés Iniesta iyo Sergio Busquets oo Barcelona, Saúl iyo Koke iyo Atletico Madrid iyo Thiago Alcantara, David Silva iyo Manchester City u ciyaara. Mauro Icardi oo xulka Argentina. Mauro Icardi hadaafka ahna dowri Itaaliga Inter Milan u ciyaara. kamu helin halka meel tiim xulka Argentina taasoo u sababa inaan si fiican isku dhex gelin ciyaartooydooda oo lambarka wax ka ah Lionel Messi. Radio Nainggolan Belgium ciyaartooygaasi inuu ka maqnaado Mundialka ka dhici doona Ruushka waa kuwa ugu la yaabka badan buu ka mid ahaa. dhexda ugu wanaagsan Roma ayuu ka mid ahaa liiga Talyaaniga halkaasoo markaa ay daawadayaashii ama xulka ay baraha Twitterka iyo internetka iyo Facebookaba ay aada uga cambaareeyeen ka reebitaanka ay ka reebeen laacibka xidiga ah. Marcos Alonso Hispania waa baasha u ciyaara Chelsea. Mourinho had iyo jeer uu isku halayo tababaraha Chelsea laba xilli ciyaareed uu ka soo ciyaaray halka liiga Ingiriiska kamu helin boos isna xulkiisa qaran taasoo tababaruhu u yeedhay Nacho Monreal ciyaartooyga u ciyaaray jiray Arsenal iyo Ingiriisi. Joe Hart oo Ingiriiska goolwadaha Ingiriiska Joe Hart uu ka waayay isaguna liiskii xulka Ingiriiska ka ciyaar doona koobka adduunka taasoo marka loo eego inta ciyaarood ee duwaliga ah uu ciyaaray ay saddex goolwado kale oo loo yeedhay saddexdaas uu ka badnaan doono inta uu ciyaaray xulkiisa. waa Jordan Pickford oo Everton ah, Jan Botland, Stoke City, Nightclub oo ciyaara Bernele, Sergio Roberto oo Hispania, Johnny Lobalet oo tababaraha Hispania isna wuxuu ka reebay ciyaartooygaas xidiga Barcelona oo ciyaara. waxaan u yeedhay tababaruhu Daniel Carvajal ciyaaryahanka u ciyaara Real Madrid.
iyo Alfara Ledruzura oo xidiga u ciyaara Sidisad Real Sociedad. Andre Rabiot oo Faransiis ah Didier Deschamps baa markaas soo dhigay liiskii uu ka reebay xidiga Paris Saint-Germain Rabiot oo ana la yaabay wuxuu uga reebay sababta halkuu uga yeedhay tababaruhu wuxuu yeedhay dhexda N'Golo Kante, Blaise Matuidi oo Talyaani ciyaara, Steven Sossi oo ciyaara Sevilla iyo Paul Pogba oo Manchester United ah, Corentin Tolisso oo Bayern Munich sana u ciyaara. labada xidig ee Barcelona way ka maqayn iyo Luis Nani ka maqan Eder xidigii u keenay koobkii Europa goolkii iyo Nacho Sanchez oo ciyaartoygii ugu wanaagsanayd da'da yaraa ku qaatay xilliga koobkii Yurubka. haddaan xagga kale u kacno Carabta ah xulalkoodana waxa ka maqan Soufiane Boufal Morocco isna uu ka maqan yahay una ciyaaro Southampton-ka English naadiga ah iyo Walid Azar ciyaartooyga Masriga ah isna uu ka maqan yahay ahli Masriga u ciyaara. xagga Masarna Actor Kobar tababarahooda wuxuu soo bandhigay ciyaartooyo cusub iyaguna aad u da'yar. weeraryahanka naadiga Borsiciid leeyahay Masriga ka ciyaara Ahmed Jumca iyo laacibka Zamaaliga ah Mahmoud Abdelaziz iyo Mahmoud Ahmed Alonish. kadaalika waxa soo noqday Sharif Ikrami oo gool wada ah isagoo xitaa in badan ka maqan tiimkiisa uu ciyaaro muddo dheer. Amru Tariq isna waa ku soo noqday ka ciyaara liiga Mareykanka. Tunisia iyaduna Yusuf Msakli oo ka fadhiya sababtoo tahay dhaawac uu yahay iyo Taha Yasin isna dhaawac ku maqan yahay oo dhaawacaas isna kaga maqan yahay. laakiin xulka Sacuudiga wax cusub iyagu kuma jiraan oo ciyaartooydoodii liiga ka ciyaaray unba ka ciyaaraya.